السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal ku soo dhowaada meel kastoo joogtaan caalamka war wixii aan caalamkeedii ka haynay wararka ugu doorka roon wararka ugu muhiimsan ee maanta caalamka afrika iyo geeska afrika wararka caalamka maraykanka iyo shuruucda caalamiga madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuusan u baahnayn sharciga caalamiga ah si uu u fuliyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda hadalkan ayaa dhaliyey dhaleecayn xooggan oo caalami ah iyadoo falanqeeyayaal ay ku tilmaameen in maraykanku dib ugu laabanayo siyaasadda ku dhisan xoog iyo faragelin oo lagu sifeeyey da'dii gumaysiga chinaha iyo kanada ra-iisul wasaaraha kanada mark connery ayaa qorshaynaya booqasho rasmi ah oo uu ku tago chinaha si loo xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo dhaqaale ee labada dal arrintan ayaa imanaysa xilli maraykanku cadaadis dhaqaale ku hayo kanada sidoo kale ruushka ayaa qaaday duqaymo ballaadhan oo ka dhan ah yukrain isagoo adeegsanaya gantaallo hyberson ah ruushku wuxuu sheegay in weerarada ay beegsadeen kaabayaal muhiim ah oo ku yaalla kiyef halka yukrain ay ku tilmaantay baldembi dagaal midowda yurub iyo heshiis markas dalal ka tirsan midowda yurub gaar ahaan faranse ayaa weli muran ka muujiyey heshiiska ganacsi ee markas iyagoo ka cabsi qaba inuu saameyn taban ku yeesho beeraha iyo wax soo saarka guud ee yurub sidoo kale chinaha ayaa xadiday dhoofinta walxaha dhulka naadirka ah kuwaasoo muhiim u ah warshadaha tiknolojiyadda casriga ah tallaabadan ayaa sii kordhinaysa xiisaha ganacsiga u dhexeeya china iyo jabaan sidoo kale cimilada yurub duufaan xooggan ee gorati ayaa ku dhufatay koonfurta ingiriiska iyo waqooyiga faransiiska taasoo keentay koronto la'aan ballaadhan gaadiid hakaday baraf roobab iyo dabaylo xooggan sidoo kale iiraan mudaharaadyo sii kordhaya bannaanbaxyo waaweyn ayaa ka socda iiraan iyadoo dowladda gebi ahaanba ay jartay internetka xirtay dad badan ay jiraan dhimashooyin la xaqiijiyey arrintan ayaa dhalisay walaac caalami ah oo ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyadda wararkii afrika ku soo dhowaada suudaan 1,000 maalmood oo dagaal ah dagaalka suudaan ayaa galay maalintiisii 1aad iyadoo hay-adaha samafalka ay sheegeen in ka badan 30 milyan oo qof ay halis ugu jiraan gaajo barakac ballaadhan adeegyada caafimaadka oo burburay sidoo kale south africa tobabar ciidamada badda ee PRICS china rushiya iiraan iyo south africa ayaa bilaabay tobabar badeed oo ballaadhan oo ka socda kipton taasoo muujinaysa iskaashiga militari oo sii xoogaysanaya afrika ayaynu weli ku guda jirnaa uganda digniin qaramada midoobay ayaa ka digtay in doorashada madaxbannaanida uganda 15 janaay ay ku socoto jawi caburin siyaasadeed xorriyadaha hadalka oo xadidan kalsooni darro doorasho dhanka kale etoobiya iyo china ayaa ku heshiiyey xoojinta xidhiidhka istiraatijiga ah ee all water kadib kulan dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee china wang ya iyo ra-iisul wasaaraha abiy axmed iskaashiga cusub wuxuu diiradda saarayaa dhaqaalaha ganacsiga kaabayaasha tamarta gaadiidka teknolojiyadda waxbarashada dhaqanka arrintan waxay qayb ka tahay natiijooyin shir FOCAZ bajiin iyo xoojinta xiriirka afrika iyo china sanadkan 2026 sidoo kale weli waxaan ku guultarnaa etoobiya tabarucaadka bulsho iyo waxbarasho oo ay dowladda etoobiya taageerayso ra-iisul wasaare ku-xigeenka etoobiya ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay si joogto ah u taageeri doonto howlaha caafimaad iyo waxbarashada ee ay wadaan ururada sida kaniisadaha kootaliga si loo ballaadhiyo adeegyada bulshada sidoo kale qiimeyn cusub ayaa tilmaamaya in khatarta colaadeed xuduudaha etoobiya iyo eritrea ay sare u kacayso
sannadka 2026 iyadoo ciidamada labada dhinac ay ku jiraan xaalad feejignaan sare ah. sidoo kale Soomaaliya boqosho dib loo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi oo la filayay inuu yimaado Muqdisho ayaa si lama filaan ah dib ugu baaqday. amniga Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay, wadooyin badan ayaa la xidhay. ugu dambayn boqoshada la baajiyay iyadoo aan la shaacin sababta rasmiga ah, laakiin sida waxay sheegayaan wararku inuu amni darro darteed uga joogay magaalada Muqdisho, siday sheegayaan warar la soo gaaraya hadda. sidoo kale waa la yar daawada shaaciyo falaqaynaya waxyaabaha geeska Afrika ka socda. sida ay weerar ku qaaday Soomaaliya, China waxa ay weerar ku qaaday Somaliland. xaalka caadi ma ahan. maanta saad la socoteenba xamar waxaa la sugayay inuu imaado wasiirka arrimaha dibadda China, balse ma uusan imaanin. kadibna warqad ayaa soo baxday. wasiirka madaxtooyada Somaliland ayaa warqadii soo dhigay bartiisa X. warqadda waatan. warqadan marka waxaa ku qoran in wasiirka arrimaha dibadda China uu xamar u tegi waayay ammaan dari halka ka jirto. wuxuuna ku dul qoray marka boostigiisa in Soomaaliya aysan sugi karin ammaanka martidooda. xasan sheekh maxamuudna ay tahay in diiradda uu saarto ammaanka gudaha inta uu ku mashquuli lahaa Somaliland. sheekadu markay halkaa marayso, safaaradda China ee Soomaaliya wasiirka jawaab ha siisaba. jawaab degdeg ah ha siiso. waxaana ay dhahday arrintan waa cayb, waa been abuur cad, waana qayb ka mid ah ololaha marin habaabinta. China halkaasi kuma ekaanin, waxay kaloo sii raacsatay wax kastoo aad samaysaan waxba kama bedeli kartaan xaqiiqda ah in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. sheekadu markaa halka ay marayso, waxaan jawaab ka sugaynaa waa Somaliland iyo Israa'iil. waayo Israa'iil waxay aqoonsatay Somaliland. haddii marka China uu leeyahay Somaliland Soomaaliyaad ka mid tihiin, dowladdii wax aqoonsatay ee Israa'iil ahayd ayaan jawaab ka sugaynaa waaga markuu bariyo. salaamu calaykum. sidoo kale waa la yar daawada wiilkan falanqaynaya siday firdhiye iyo xasan sheekh siyaasadoodu tahay. waa la yar daawada. ilaa hadda waxaan la yaabanahay, ilaa hadda waxaa maskaxdeeda gelila sida firdhiye xasan sheekh maxamuud uu aaminsan yahay, u daba socdo, madaxweyne ugu hayo, iyo sida xasan sheekh maxamuud firdhiye u bahdilayo, u quursanayo, u dhayalsanayo, uusan xasan sheekh maxamuud u aaminsanayn in firdhiye uu matalo dad iyo deegaan. yacni waa bahdilaad meesha ugu dambaysay. xasan sheekh maxamuud ma aaminsana firdhiye inuu dad iyo deegaan matalo. waa quursi meesha ugu dambaysay. xitaa waxaa lagu leeyahay firdhiye xasan sheekh maxamuud uma xanaaqi karaa lagu leeyahay. oo xasan sheekh maxamuud wuxuu ku leeyahay hadduu xanaaqo xaggee wax geynaya. bal ilaahay baan ku dhaarshay fiiriye. bal hadda fiidowgan daawada aad baan ula yaab. ila daawada fiidowgan. dadka Soomaaliyeed ee waqooyigu اعترافku idinkama jiro Netanyahu. waa inuu Soomaalnimo doonayaa niman Soomaali doonayn hayga dabageyn. magaaladii Sool ee 2023 waxay astaan u ahaayeen sida aanu nidaamka ka jira waqooyiga wadada nabadda uga luntay. ka lagu ballaarinayo gobolada waqooyi aynu iska daynaa hadii la yiraahdo. xasarada gooni goosadka kama taagna gobolada waqooyi ee Soomaaliya. xasaradaas waxay ka taagan tahay goboladii waqooyi galbeed. daawadayaal war waxaanu caalamka idiga haynay waa naga intaa tan iyo intan dib u kulmayno habeen wanaagsan meel kastoo ka jirtaan caalamka. waxaan isku salaamayna salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. please subscribe, share, comment. baalka hoos buu dhacay kor u qaada. subscribe saara please waa cusubnahay. bye.